soo dhawaada barnaamij aad u xiiso badan iyo caawa ismartiinina soo dhawaada aqaarta sharafta leh meel walba caalamka ka joogtaan iyo marxalad walba waliba aad ku sugan tihiin runtii waxaan idin hayaa barnaamij aad u xiiso badan iyo waliba sidoo kale isbedelada siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya haatan ay ku jirto qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo iska soo dabalaabadkii mas'uuliyiintii maalmahan dambe iska soo dabalaabanayay xasuuqidii biriire xildhibaanada iyo mooshinkooda iyo waliba qodobo kale oo aad u muhiimsan waxaan rajaynayaa inay igala qayb qaadan doonaan dadyo aad u muhiim ah sidoo kale waxaa qayb ka noqon doonta barnaamijka ku wareysan doona hadduu Ilaahay yiraahdo Idil Farmaajo oo iyadu ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya walaashiis soo dhawaada waxaan jecelahay barnaamijka inaad share gareysaan hadduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada share si geliya si aad ula qaybsataan walaalaha aad baa mahadsantiin barnaamijkan hore u galeynaa sidaan hore idinkugu sheegaba barnaamijku waa inoo bilaabanaya hadduu Ilaahay yiraahdo haatan la joogo idil waa ku jirtaa qadka Soomaha walaal waa ku jiraa assalaamu calaykum waa ku jiraa buu waa ku jiraa calaykum asalaam waraxma aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow broadcastingkayga live-ka ah runtii dad aad u fara badan ayaa ku jira qadka kuwa kalena waan rajaynayaa Idil Farmaajo waxaan rabay inaan kaa wareysto isbedelada siyaasadeed ee hadda jira iyo siyaabaha aad u aragto adigu horta assalaamu calaykum waan wada salaamay dadka Soomaaliyeed ee qadka ku jira ee adduunka caalamka iga dhageysanaya waa idin salaama 14 boqolka idinku salaamay iyo anigoo aad iyo aad qaraxyadii wadanka ka dhacay dhibaatadii wadanka ka dhacay shacabka Soomaaliyeed oo aan uga tacsiyeynayo oo dadkii dhintay naxariistii jannaalaha ka waraabiyo intii caafimaad qabtana Allah caafimaadkooda siyaadi intii dhaawacan Allah ka kiciyo marka anigu aad iyo aad situationka Soomaaliya aad baan uga xumahay arrimahan dhacay qaraxyadii dhacay dhibaatadan ilaa iyo dawladdii ilaa iyo hadda waqtigii la joogo dhibaatada ka taagan wadanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed baabaood iyo xasuuqood aad iyo aad baan uga xumahay sidoo kale inaguna aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay si guud ayaana uga wada taxsiyeynaynaa aad baad u mahadsan tahay haddii dhankaas taxsiyeynta aanu ka gudubno bal waxaad iga warantaa xaaladda siyaasadeed heerka ay taagan tahay iyo sidaad u aragta adigu waqti xaadirkan la joogo wallaahi aniga waxaan u arkaa horta xaaladda siyaasadda iyo sidaan u arko ama sida la arko Soomaali weynta oo dhan ilaa hadda wadankii dawladdii 8 February dawladdii la doortay ninkii walaalkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxweynaha ahaa ee loo doortay wadanka Soomaaliya inuu hogaamiyo nabadgelyadeeda inuu ku soo celiyo shacabkii jeclaa ee doonaya ee u istaaga u fariistay aan rajo weyn u lahayn wadanka inuu soo noqdo nabadgelyadiisa iyo calankeena iyo shacabka masaakiiniinta inuu maanta badbaadiyo qaraxan iyo nabadgelyada iyo xumada ka jirta inuu sida u dhaamo aad iyo aad baan uga xumahay arrimihii ka dhacay intuu wadanka dawladda uu madaxweynaha ka ahaa waxaan u malaynayaa almost 9 bilood miya 8 bilood miya intuu hadda February 8 ilaa hadda intuu madaxweynaha ka ahaa ilaa iyo haddana dhibaato waxaa ka jirta aan istaba joog leh hadday noqoto nin maskiina in Ethiopia loo dhiibo qalbi dhagax hadday noqoto bariire in dad lagu laayo hadday noqoto askar masaakiiniina oo dee aan wadanka meelaha dibadiisa wax ku soo bartay in la xasuuqo hadday noqoto askarta inaan mushahar la siinin hadday noqoto qaraxyo aad u foolxun ayaan dhaweed sooba ka dhacay lagu baaba'ay lagu googo'ay oo ilaa hadda dadkii shacabkii aan xataa raq iyo ruuxba dhimashadooda iyo noloshooda gacanta lagu haynin iyo qaraxii shalay ka dhacay aan aad iyo aad uga xumahay iyo dowlad goboleedka dhibaatadii faragelinta lagu hayo oo lagu kala jajabinayo markee wadankeenu waa federaalism dagaal sokeeyaa ka dhacay laakiin waxa weeye 4.5 inoo maxay ahayd maamulka iyo federaalismka sida ay tahay xeerku ay tahay baarlamaanka u dhigan in lagu wada yahay laakiin ma aysan noqonin
baan arrimahaasna aad uga xumahay laakiin mid kale waxaan ku darsanayaa anigu ninka ila dhashay walaalkay waa nin fiican waa nin wanaagsan laakiin dowladdii sidii loogu dhiibay umuu hayo rag baa haya khayraana madaxweyne waddanka ka ah prime ministerna ka ah asaa labadii maamul isku haya ninkii loo dhiibtay ee shacabka soomaaliya ay doorteenna qol buu ku xaraysan yahay markii wax loo baahan yahay ama rabo adduunka ama dhaqaale iyo ama wax laga saxiixanayo qolkaa loogu tagaa waa laga soo saxiixdaa marka ma aha nin dowladdii sidii loogu dhiibay ama dhaqdhaqaaqii actionka ahaa madaxweynaha ahaa u dhaqaaqahaya ama shacabkii shalay doortay shalay u ooyahayay uu dariiqa u taagnaa uu kutubka ugu maray oo maxay hayteen aaminay oo soomaaliya oo dhan loogu aaminay uusanna ka soo bixin marka aad iyo aad baan uga xumahay hanjabka soomaalida ku dhacday iyo hanjabka nagu wada dhacay annaga haddaan soomaali nahay marka aad iyo aad baan uga xumahay dowladdii gacanta loogu dhiibay inuusan maanta ku haynin uu ku hayo khayre madaxweynena ka yahay prime minister ka yahay dadkii shacabkana lagu xasuuqayo xasuuqa waddanka ka dhacayana ay ka mas-uul yihiin dowladda marka aad baan uga xumahay arrintaasna aad iyo aad bay idil aad baad u mahadsan tahay cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee waddanku prime minister iyo wuxuu leeyahay golo wasiiro baarlamaan guddoomiye baarlamaan iyo weliba qaybo kaloo aad u fara badan oo markaasi xukuumadda la shaqaysa eedeyntan qaaska oo asaga aad ku qaas yeelayso ma la dhihi karaa waa mid gaar ah maadaama madaxweynuhu uu shaksi yahay mas-uuliyaddiisuna ay tahay midii ugu sarraysay iyo madaxweynaha ahayd laakiin ay ahayd xukuumaddu in ay fuliso shaqadan ciddii laga rabay xukuumadda prime ministerka iyo golaha wasiirada miyaynan ahayn wallahi maxay ahaydeen maxamed cabdullaahi arrinta uu ka seexday ama asiga positionkii laga rabay waxay ahayd markii la dooranayo wuxuu ballan qaaday inuu musuq maasuqa joojiyo wuxuu ballan qaaday inuu shacabka nabadgelyadooda soo celiyo wuxuu ballan qaaday inuu nabadgeliyo waddanka shacabka soomaaliyeed ay ugu wada noolaadaan al-shabaab iyo wixii dhibaateynaya inuu ka qabto wuxuu ballan qaaday inuu safarada uu hadda uu baxayo inuusan bixayn uu ku dhaliilahayo madaxweynihii hore xasan sheekh inuu hadda baxayo safarro badan uu galay uu ku dhaliilay arrimo badan inuu musuqmaasuqa la dagaalamahaya inuu shacabka qancinahaya inuu u hagarbaxahaya laakiin waxaan ka dareensanahay inuu asaga shaqadii uusan rabin shaqadii looga baahnaa sayidkiisa madaxweyne inuusan ka soo bixin sababtoo ah waxaa keenaya arrimo badan oo culus baa waddanka ka dhacay asoo waddanka madaxweyne ka ah ayaa nin soomaaliyeed laga dhiibay muuse wuxuu ku leeyahay maana ogeyn shacabkii waa sugayeen inay usoo baxaan arrintaa ka jaahil bixiyo ama khalad ka dhacay ninka waddankiisa asagoo jooga ee waddankiisa u dagaalamahaya ee askariga soomaaliyeed ah ee waddaniga ah ee asagoo jooga ee hoostiisa inta lagala baxay etoobiya gacanta laga saaray ma ahayn inuu ka seexdo ma ahayn inuu shacabka ka aamuso waxay ahayd shacabka shalay si ugu soo baxahayay intaana la dooranin iyo ballanqaadku samaynayay ayay ahayd inuu usoo baxo shacabka soomaaliyeed ninkaas hoostiisa laga dhiibayna waxay inuu action qaado dadkii dhiibayna inuu action ku qaado ma uu samaynin walaalkay wuu dhuuntay shaqadiisii oo dhan waxaa qabanahayay khayraa qabanahayay wax allaale wixii waddanka laga fuliya khayraa qabta asagii aaway waa laga soo booday haddana beriiraa dad lagu laayay shacab soomaaliyeed baa layska dilo oo lagu xasuuqay walaalkay ma soo bixin meeshii laga rabay inuu madaxweynihii maanta maadaama mas-uul yahay madaxii sare ka saarnaa inuu u soo baxo dadka shacabka sababta lagu laayay sababta dhibka ugu dhacay uu baaritaan u galo dadkii shaqada lahaa uu maxay ka shaqeeyo ama uu ruqseeyo uu shacabka u soo baxo uu dadkii gacmaha ugu qabto uu soomaalida u soo baxo uu u khudbadeeyo ma uu samaynine waa dhuuntay waa aamusay maalmo badan bay bannaanka meydkii bannaanka yaaleen oo la diiday in la aaso waxaa la ballan qaaday lacagtii lagu aasi lahaa iyo magtoodii in la bixiyo waxaan hadda ilaa hadda maqaalay waa xitaa magti inaana la bixin baryo badanna bannaanka meydka waa yaaleen asagana muusan soo hadlin waxa meelaha ordahaya ama hadday dhacdo ama hadday dhaqdo shirar noqoto ama hadday noqoto dhibaato dadka shacabka loo geysto mar kastaba khayraas soo baxa annagu khayra ma dooranin waa prime minister asaga aaway xaguu ka baxay maxaa ku xareeyey madaxtooyada idil adigoo raalli ah haddii aan kaa dhex galo kiisasku markay dhacaan maalin iyo 2 iyo 3 kuma dhammaadaan maxaa yeelay hadda kiiskii aad ka hadlaysay madaxweynuhu wuu sheegay wuxuu yidhi baaris ayaa la samaynayaa
ciidamada sirdoonka iyo kuwa amniga oo markaasi wada jira ayaa loo xil saaray marka miyaysan ahayn haddii xitaa shaqadaasi habsaama uu ku yimaado inay qusayso qeybaha kale ee laamaha ammaanka ee markaasi dowladda federaalka soomaaliya xukuumadda farmaajo xukuumadda khayre maxaad qaas uga dhigaysaa madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo okay waxaan uga dhigayaa khaas ahaan baan uga dhigayaa walaalo markee hadda dhibaatada dhacaysa hadda uguma horreyso aawa ninkii la dhiibay qalbi dhagax aaway arrintiisii xaggee ku dhammaatay baarlamaankii u fariistay aqalkii sare iyo aqalkii hoose iyo guddigii loo dhigay in arrintan ay soo saaraan aaway waa laga aamusay haddana beriiroo dagaal lagu qaday haddana waa laga aamusay dadkii shacabka dhalaayay haddana dagaal kaleta askar kalaa la xasuuqay haddana waa laga aamusay haddana waxaa la aaday hirshabeellaa la aaday waa laga tuuray ina cosob leh haddana galmudug baa la aaday haddana waxaa la aaday in maxay tahay sooba dagaal qarax weyn oo maxay tahay faraha looga gubto Soomaali ay ku baaba'aan lagu sameeyay haddana waa laga soo booday haddana qaraxii shalay baa ku dhacay aawe asagii inta baaritaanku maxay tahay midda kale waxaan ku weydiinayaa walaalo maxaa 24 saac mid haddii dhibaato laga soo baxo maxaa dhib kale haddana keenay maxaa haddana dhib kale keenay ma Soomaalidii baa la rabaa in la jaha wareeriyo maxay dadkii baa la rabaa in la xasuuqo aawe asagii aawe madaxweynihii la doortay aaway ilaa waxaa ordahaya maxay hayteen khayre waxaa hor ordahaya khayre waxaa dadka la shirhaya khayre waxaa shacabka hortaagan khayre waxaa dhoofahaya khayre waxa maxay hayteen dowlad goboleedka askarta u diraya khayre aawe ninkii la doortay aawe ninkii Soomaali u dhaartay aawe ninkii baaritaanka geli lahaa aawe raggii wasiiradii shaqooyinkooda dayacay aawe ruqseyntii iyo banishmentigu ku samayn lahaa aawe maxaa aamusiyey miyuusan madaxweyne ahayn aawe midda labaad annagu khayre prime minister weeye walaalo nin walbana shaquu leeyahay nin walbana shaqadiisu inuu guday leedahay wadanku waxa weeye ninka madaxweynaha loo doorta ma aha inuu iska seexdo soo tooso ma aha inuu qol ku xirnaado ma aha inuu aamuso ma aha inuu shacabka ka dhuunto ma aha inuu maxay hayteen joy prime minister oo wax qasahaya ama wasiiradii oo wax qasahaya inuu ka aamuso ma aha maxaa mas'uuliyadda asaga loogu dhiibay sababta loogu dhiibay uu ka seexday maxay tahay hadduusan qaadi karin mas'uuliyaddana waxay ahayd maxamed cabdullaahi inuu banaanka u soo baxo yiraahdo aniga ma qaadi karo waa iscasilayaa laakiin ma ahan khayre labadaba inuu isku qaado laakiin anigu xogogaal waxaan u hayaa maxamed cabdullaahi inuu guri ku xiran yahay labada shaqana uu isku hayo maxay ahayteen khayre uu xeyndaab ku jiro oo rag kaleetana maamulka ay hayaan just asaga waraaqaha iyo waxa la fulinayo oo asaga laga soco saxiixo wax uu kala socdo dawladda iyo waxa ka kala socdan uusan ka warhayn anu taasaan xaqiiq kuugu hayaa walaalo marka aaw madaxweynaha aan dooranay marka annaga idil adigoo aad u mahadsan dabcan waxyaabo badan oo hadda aad ku qaas yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaad adigu hadda ka dhawaajisay hase yeeshee waxaa jira ayada laftirkeedu howlo qaas ah oo laga rabay prime ministerka dowladda iyo wasiirka gaashaandhigga ama amniga in ay ayagu xaqiijiyaan marka intii madaxweynaha aad arrintaas sida gaarka aad ugu leexin lahayd wasiirkii gaashaandhigga oo markaasi awoodii markaasi ciidan oo dhan ku fadhiya iyo waliba sidoo kale qaybihii kale oo markaasi laamaha ammaanka iyo sirdoonka inaad macnaha markaasi ayaga laftirkooda dhaliisha aad u soo jeediso soo ma habboona intaasba maadaama ay hortagayaan prime ministerkii dowladda horta waxaan ku sheegahayaa groupkan ama wasiirro uu ka dhigay ama gaashaandhig uu ka dhigay ama prime minister uu ka dhigay ama uu dhiibay ammaanka u dhiibay horta groupkan waa group maxay ahayteen kulligood wadankii dayacay waa group ay isku xiran yihiin khayre waa group ay connection ka wada dhaxeeyaan waa group u soo jeestay qaranka Soomaaliyeed inay boobaan waa group u soo jeestay shacabka Soomaaliyeed inay baabi'iyaan waa group u soo jeestay marba Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed inay marar habaabiyaan waa group u soo jeestay dawladda Soomaaliyeed inay dhulka la galaan oo waxyaalihii iyo shuruudihii iyo baarlamaankii iyo wixii oo dhan inay baabi'iyaan marka groupkan 8 Maarso ama ha noqoto gaashaandhigga ama ha noqdo prime ministerka ama ha noqdo ammaanka ama ha noqdo ciidamada ha noqoto
ama wasiir ha noqdo ama Fahad Yaasiin ninka la leeyahay ee qadar ku xiran oo asaga qaraxa kow ka mid ah oo dadka qaraxa iyo miinooyinka ku xiran yahay uu kow ka mid yahay in qaraxyada baabuurta lagu xiro oo dadka shacabka lagu laayo gruubkan waa gruub u heshiiyey shacabka Soomaaliyeed inay baabi'iyaan marka waxaan ka codsanayaa oo mar labaadna idil haddii aan ka dhax warkaagu qaybo kamida inay jiraan waa laga yaabaa qaybo kamidana waxyaabaha markaasi la baabuuniyo oo social media dadku ay la wareegayaan inuu yahay ayaa laga yaabaa adiga haddii aan si gaar ah ku weydiiyo waxaa soo magac qaaday mas'uuliyiin kamida dowladda federaalka Soomaaliya including madaxweynaha Soomaaliya qodobadaas aad hadda sheegayso oo dhaqaalaha iyo maxaan ku irahdaay luudsiga dhaqaale la xiriira maxaad ku cadeynaysaa adigu wax ma nooga taaban kartaa mase waa un maalin kaliya ها walaalo waxaan ku cadeynayaa kaaga sheegayaa example baan ku sheegayaa maxamed cabdullaahi markii la dooranayay xildhibaanada iyo aqalka sare iyo aqalka hoose annagu haddaan shacabnaha iyagaa mas-uul naga ahaa wuxuu ballan qaaday musuq maasuqa inuu joojiyo oo wax musuq maasuqa waddanku aysan dhicin iyo corruption inay dhacdo ama laaluush dhaco ama lacag shacabka Soomaaliyeed loogu soo talagalay inay suuqa la maraan ee qayriinka ku wada qaybsadaan anigu waxaan xogogaal baan laahay anigu madaxtooyadan ku xirnahay waana la socdaa akshinada la qaado maxamed intuu dhoofayay qarashkii uu soo qaaday ama dawladaha carabta laga soo siiyay baarlamaankana muu soo dhex dhigin wuxuu u dhoofayna baarlamaanka ma soo hor dhigin lacagtiina ayagaa wada qaybsaday gacantuu ka wada saaray corruption baa ku socda oo qof allaala qofkii dawladda yiraahdo amaan lacag baa la siinayaa lagu laaluushahayaa lacag baa lagu tuurahayaa dadkii shacabka ahaa uu shalaytu gacanta ballanta ugu qaado uu kutubka ugu marayna wax allaala wixii ama qarasha ama wixii qaranka uu lahaa looma siinin waxaan haddana aan caddeyntu hayaa markii uu iscasilahayay wasiirkii gaashaandhigga asaga iyo prime ministerka Khayre in lacag 12 milyan lagu heshiiyay in la kala qaybsado kabacdina uu lacagtii uu dhunsaday ninka la leeyahay Khayre uu kabacdina wasiirkii gaashaandhigga uu 200 ka siiyay wasiirkii gaashaandhiggana uu lacagtii markuu arkay ninkii in la kala qaybsaday uu haaf wax yar ka siiyay uu go'aan ku gaaray maadaama musuq maasuq iyo qaranka lacagta qaranka in la boobahayo ayuu go'aan ku gaaray wasiirkii gaashaandhigga inuu iscasilo marka waxaan kuu sheegayaa idil adigoo aad u mahadsan khiyaanada ama corruptionka intaas la eg haddii ay isku raacaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba qaybo kamid ah wasiirada sidaad hadalka u dhigtay sida caadada ah waxaa dhici jirtay inuu isqabsigoodu intaysan ba macnaha dadku aysan fahmin ayagu inay banaanka soo dhigaan oo maxaan ku irahdaa ummaddu ayagu ay isqabsadaan ilaa labadii maxaan ku irahdaa khiyaamo ku heshiisa ama xaqdarro ku heshiisa xaqa banaanka keena marka ilaa haddana wax cilada oo maxaan ku irahdaa arrimahaas la xiriira oo isqabsi dhaqaale ah kumaan hayno dowladdii federaalka Soomaaliya sidoo kale sinis ilaa iyo xukuumadda intii uu la wareegay Khayre madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku fadhiistay madaxweynihii u noqday madaxweynihii dowladda ciidamadii maxaan ku irahdaay militariga ahaa iyo kuwii booliska iyo sirdoonkii wax qaylaha kama yeerin oo waxay qaataan mushaaradkooda si sax ah marka haddii ay jiraan waxyaabaha aad ka hadlayso ama ciidanka ha noqoto ama wasiirada ha noqoto ama baarlamanka iyo maxaan ku irahdaa gudoomiyaha baarlamanka oo isqabqabsanaya ha noqoto waxyaabo badan baa soo bixi lahaa marka soo laysma dhihi karo xoogaa arrintaas waxbaa mugdi baa ku jira adigu yacni ila sax ah oo markaasi aniga iyo ummadda ku daawanaysa ee markaasi ku fikiraysa inay har u tahay ama macnaha geed u tahay dowladdii Soomaaliya inaad ku qancisahay suuragal ma tahay okay midda ugu horeysa ay weydiisay ay tiri way isqabsan lahaayeen way isku dhigi karaan horta isma qabsan karaan because maxamed iyo ninka la leeyahay Khayre waa seedigiis horena maxamed waa u sheegay wuxuu yiri waxaan ballan qaadayaa inaan isqabsanaynin waa seedigiis maxamedna isma dhaqaajin karo maxamed nin is dhaqaajin kara maaha barkay seedinimo ku soo galay barkay xaaskiisa iyo Khayre waa ilma adeer wasiiradana inta mostly inta loo dhiibay xilka loo dhiibayna waa familka reerka xaaskiisa reerku ka qabo mid ay dhaleen iyo mid uu qabo iyo mid maxay hayteen ay la dhasheen iyo mid uu qabo iyo mid ay dhaleen waa reerka xaaskiisa ah
محمد عبد الله اسمه قبسن كران because حكى فميل كحاس كيسي كسو ودا قالين محمد عبد الله سبب تقول كلوغو حيرينا وحاوي ما دام أي توي دولتي أنا جهسنا هاي أركن دولتي وحي أوبرتي حكى فميل كحاس كيس رير حيدت كيسها مركا ما دام رير حيدت كيس أوبرتين محمد توي ما قبسن كرو تاس قوان كسومالي كبلان قادي وي إني سليس قبسن بركي واني كان واسيبي كو اللابو waxaan idin sheegayaa maxamed mas'uuliyad badan buu qaaday Soomaaliya oo dhan buu madaxweyne u yahay madaxweynuhuna ma aha inuu dhuunto madaxweynuhuna ma aha inuu shacabkiisa ka aamuso madaxweynihiisu ma aha markii adduun isku baaba'o oo shacab baaba'aan oo adduun qarxi ugu weyn inuu soo baxo inuu la banaanka loo soo saaro asagoo markii hore dhibaatadii soo dhacday uusan u soo bixin ma ahan qarxi weynaa in banaanka loo soo dhigo marka annaga ilaa hadda shacabki nahay annagu madaxweyne ma aragno annagu khayra mas'uul ka asagaana madaxweyne ka asagaana baraamis ka anuguna walaalkay waa naqaana aqoon baan idin ka leeyahay walaalkay dawladda ma wado rag baa wada raggaasna waxay doonayaan oo arrintay maanta go'aanka ay ku gaareen waxay doonayaan ama uu khayra kow ka yahay in dadka shacabka Soomaaliyeed la xasuuqo markii hal ilaa 4 sano maxamed uu haystay inay xasuuqaan ka bacdina ay maxay ahaayeen shacabka maxay ahaayeen qarankana ay boobaan markaasna ay rabaan wadanku inay xoog ku qabsadaan uu madaxweyne ka noqdo khayre waa arinta ay baalan degayn maanta khayre iyo famiilka reexidkiis maxamed cabdullaahi marka ragga la casilay ee maanta la casilo lagu dhawaaqay waa khalad garna maaha in loo casilo haddii la casilaayana waxay ahayd in la casilo prime ministerka in la casilo wasiirka amniga oo cali maxay ahayd ninka leeyahay maxay ahayd ila islow oo waxay ahayd wasiirkan maxay ahayd leeyahay yariisow waxay ahayd in la casilo taabit waxay ahayd gruubkan wada ciyaal suuqa ah ee dawladda ciyaal suuqa ee corruptionka ku haysta ee dadka laynayso in la wada casilay ahayd may dhicin laba nin baa laga soo qabtay saacid baa laga soo qabtay waxa laga soo qabtay sambalowsha laga soo qabtay khalad bay ku dhacday taasna waxaan u aragnaa si khalad ah nimankaas in lagu casilay oo khalad ah oo dambi laga galay haddii run la sheegayo ina islow iyo prime ministerka hal casilo haddii kaleeto waxaan ka codsanahayaa anigu mar horena waa u sheegay mar horena waan ka hadlay dawladdan haddaana laga qaban shacabka Soomaaliyeed meelay ka runteena istaagaysaa because sababtoo ah khaladka waxaa dhigay madaxweynihii hadduu meeshii uusan ka muuqnayn waxqabadkii shacabkii shalay doortay inuusan ka muuqnayn oo asaga magaciisa la yuusgaraynahayo oo group familka reer xididkiisu ka guursaday ay tahay ee Soomaaliya oo dawladda u dhameen waxaan ka codsanayaa aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka waxaan ka codsanayaa in maxamed cabdullaahi iyo dawladdaana laga rido dawlad fiican oo nadiif oo nin wadani ah iyo nin prime minister wadani ah naloo keena haddii kaleeto arrintaa way ka sii xumaanaysaa because shacabkii baa baaba'ahaya shacabkii baa la xasuuqaya dowlad goboleedkii baa dhibaato lagu hayaa corruption baa lagu jiraa dhac iyo boob baa qarankii lagu hayaa maxay ahaydeen powerful baa dadkii lagu laynahayaa qof allaale qofkii yiraahdo waa hadlahaya afkaa lagu dhagahayaa wariyaashii xamar jooga lacag baa lagu faraqahayaa facebooka dawladdu facebook ay ka duushaa cayaalka facebooka dadka caayahaya lacag bay siiyaan marka dawlad maaha dawlad facebook ka duushaa dawlad maaha walaalo marka anigu waxaan u hadlahayaa asin Soomaali ahaan dhibaatada wadanka ku dhacaysa dhibaatada shacabka lagu samaynayaana way dhibaysaa marka arrintan al-shabaab dadka malayso dawladda laynaysa al-shabaabna madaxtooyada fadhiya markay fahad yaasiin qadar baa iga raali noqo inta aadan qodobka kale ee al-shabaab aadan u gudbin waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan nafteyda iyo taadaba aan xasuusiyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo asagu madaxii ugu sareeyay maanta ummadda Soomaaliyeed masiirkoodana gacantiisa ay ku jirto iyo waliba mas'uuliyiinta kale waxaan jeclaan lahaa
waxaad tahay muwaadin soomaaliyeed xaq baad u leedahay haddii aad dhaliil tirsanayso dad badan oo culamaadudiinka ka mid a siyaasiyiinta ka mid a ganacsatada ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed ka mid a way ku kala aragti duwan yihiin bannaanka ayayna soo dhigaan kama xumi dhaliishaada iyo sidaad wax u dareentay inaad soo bandhigto laakiin waxaan kaa codsanayaa maadaama waxa aanu ka hadlayno ay tahay dowladdii federaalka soomaaliya sidoo kalena ay tahay mas-uuliyiin xoogaa ereyada qaar oo aan ku wanaagsanayn mas-uuliyadda inaad in yar aad gaabiso laakiin xaq baad u leedahay dhaliisha iyo qaabka aad wax u dareemayso inaad sheegto markii taa aan ka gudbo idal adigoo raalli ah adiga ma waxaad ka mid tahay dadka muxaafidka ah mase waxaad ku jirtaa dadka mucaaradka ah aniga ma haddii anigu waa walaalkay ninka madaxweynaha ka horta waa walaalkay dhegayso aniga walaalkay hadduu si wanaagsan waddanka u hogaaminayo waa ku faraxsanahay markay shacabka soomaalidan ka mid ahay anigu waxaan ahay gabal qaran si fiican ii dhegayso walaalo anigu gabal qaran baan ahay walaalkay hadduu si fiican oo sharaf leh uu waddanka u hogaaminayo iyo dhaartuu maray shalayto iyo wacadkuu soomaali u maray iyo soomaali say u jeclaayeen situationku uu ka ballan qaaday hadduu marsiin lahaa oo soomaalida uu qancin lahaa oo corruptionka joojin lahaa oo maxay tahay dad kala jeclaysiga joojin lahaa oo dadka shacabka dhibaatada iyo xasuuqa lagu hoy ka joojin lahaa oo masaakiimiinta cunto siin lahaa oo hoy u dhisi lahaa oo iskuul u dhisi lahaa oo caafimaad u samayn lahaa oo cunto siin lahaa oo waxa adduunka laga siiyo caalamku uu siin lahaa waa raaci lahaa sidii ilaahay ku og yahay buu ka soo baxay shacabkii soomaali ballanta u qaadayna waa u fuliyey way garanaysaa laakiin markuu walaalkay howshiisii ka seexday ee qol lagu xirtay ee guruub sir galgashteen ee guruub maamulanooyaan uu qol ku xiran yahay oo markii la rabo in wax la qaribo ama wax oo la rabo in la fashiliyo waraaqda qolka loogu geynayo laga soo siixayo oo xafiiskiisii niman kala fadhiyaan oo Fahad Yaasiin iyo Khayre iyo Mustafa Dhuxulow iyo sakariyaha midka oo al-shabaabka ah uu fadhiyo iyo maaha dawladdu saas maaha qarannimana maaha madaxweynena laguma noqdo taas sidaas aawadeed ayaan uga soo horjeestay walaalkay because sababtoo ah markee dawladda asiga ma hogaaminahayo nin seedigiisa hogaaminahaya جروب maxay hayteen al-shabaab ku xiran baa hogaaminaya group musuqmaasuq ku jira hogaaminaya group shacabkii Soomaali xasuuq haya wadankii hogaaminaya group bob maxay hayteen qarankii bob ula yimid iyo dhac iyo bob oo maxay hayteen lacagii dekedaha iyo lacagii shacabka la siinayo boobahayo oo wax ku qabsanaya yimid marka doorashadu sidaas ma ahayn Maxamed Cabdullaahi doorashadiisii iyo sidii loo dooranayay ma uusan noqonin been buu sheegay Soomaalida been buu kutub gacanta ugu maray qofka bini'aadamkana waxa fiican kutubka Ilaahay inuu yaqaano qofka Ilaahay waxa fiican qofka inuu xaq islaamka iska ilaaliyo qofka Ilaahay waxa weey waa inuu nin jeclaysiga joojiya waa inuu Soomaaliya oo dhan u xaq sooraa marka walaalkay rag baa sirkal ku haysta dawladana ma maamulo rag baana maamurta labadii kursina waxa ku fadhiya Khayra ku fadhiyo madaxweynena ah prime ministerna ah 4.5 baan u kala qaybsanay دولة الصومالية مركز 4.5 بالو كلا قيسنا هاي فوركي محمد عبد الله وما فديه محمد عبد الله ماشي وحكي هاي أبسن لبدي كرسينا خير رئيس كم عمرنا هايو دولة دينا وحد هرتي من دبعته يدعو الشعب إن حسوقه نبت جريري قعنتي ويكبر هذي ضد بحسوق هي دولة دي بحسوق قيسة الشباب معها دولة ده حسوق قيسة أنا واحد كستو مدحتوية كده عدو هارين كسته بس اللي يسوق بيا وأنا رأس عدا دولة ده أنا بدك حسوق قيسة الشباب كي مدحتوية ده فديا على دار مدحتوية ده فديا سكرية مدحتوية ده فديا مستفاد حلو على الشباب كتر سرع سبوا نفتكيسو أدير كيسو هاي نمكن ليه هاي أنا على دار وافديا حسن خير أو الشباب مال قليل العكسية وده فديا وحده فديا فهد ياسين او قدر ku xiran waa asagana al-shabaab kalena waa dhex fadhiya maxaa al-shabaab noo keenana walaalo maxaa noo keenay al-shabaab anagu Soomaali baanu nahay anagu Soomaali wax laynayna raali kama noqonayo maalin kastana xasuuq iyo oohin iyo dad masaakiin in lagu dhibo raali ma uga noqonayo marka Maxamed Cabdullaahi howshiisa waa gabay weyn asira waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ayadu qusaysa xagga amniga madaxweynaha dawladdu wuxuu bixiyay ciidan wuxuu diyaariyay ciidamo isugu jira military police
sirdoon iyo qaybo aad u fara badan oo markaasi asagu uu ku talagalay intii kraankiisa ah inuu ku sugo amniga magaalada muqdisho sidoo aan idhaahdo amniga dalka soomaaliya guud ahaan nin walbo madaxweyne soo maraana wuxuu jecel yahay inta uu kursiga madaxtinimada uu ku fadhiyo ama markaasi uu yahay asagu mas'uul qaran inuu ka tago picture wanaagsan oo qurux badan iyo maxaan ku idhaahdaa markaas istiraatiijiyad wanaagsan oo looga daydo oo markaasi magaciisa iyo taariikhdiisa lagu xuso waxaan ogsoonahay runtii intuu prime ministerka ka ahaa dowladdii hore inuu yani waxyaabo aad loogu farxo oo maxaan ku idhahdaa xagga shaqooyinka arrimihiisii dardargelinta oo kale siyaasaddiisii xagga arrimaha dibadda iyo gudahaba waxyaabo badan inuu success ku noqday oo ku guulaystay madaxweyne cabdullaahi farmaajo ayaan ogeyn kalsoonidii intaa la ekayd markaas uu ka kasbaday shacbiga soomaaliyeed ayagu daafaha caalamka ku kala nool ayaa calamo aad weyn u lulay ilaahayna wuxuu u saqiray inuu markaasi challenge-gii oo soo galay tartankii madaxtinimo ee dowladdii soomaaliya inuu ku guulaysto pressure aad weyn ayaa jira oo caalamka markaasi runtii hadday tahay gudaha iyo hadday tahaba maxaan ku idhahdaay dibaddaba ka haysta dowladaha markaasi sidan oo kale ah ama carabta ha noqdaan ama afrikada ha noqdaan ama xitaa yurubta laftirkeeda ay isku hayso marka soo lama dhihi karo shakhsiyaddiisu iyo maxaan ku idhahdaay systemka uu ku wado maadaama systemkiisii hore ee ra-iisul wasaarenimada oo ku guulaystay kan si aad u moodo xoogaa yar heerkii loogu talagalay xagga amniga iyo maxaan ku idhahdaa nabadda inuusan gaarsiinin pressurada localka ah iyo kuwa dibadda ah ayaa sababay soo lama dhigi karo dhinacaas eed loogama dhigi karo halka asaga qaas looga dhigi lahaa arrintaas iyada ah okay marka waxaana bow kaaga warramayaa walaalkay markuu ahaa prime ministerka uu madaxweynahan ahaa sheekh shariif sheekh shariif madaxweyne aad u wanaagsan buu ahaa si fiican oo sharafna waddanka waa u maamulayay walaalkayna prime minister waa ahaa hawshana waa lala waday oo nin ilaahay yaqaano oo wadaada ayaa la wado sheekh shariif madaxweyne ka ahaa waa wada shaqaynayeen oo hawshii asaga keligii laguma daynin nin baa la shaqaynayay ka sarreeyay hawsha way wada wadeen si fiican oo sharaf leh wuu la waday walaalkay anigu waxaan kuu sheegayaa suuliyo maxay ahaydeen aniga walaalkay nin xun maahayn nin daacad ah buu ahaa si wanaagsan oo sharafana wuu ku mutaystay shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynayaa idil codkaaga ayaa in yar waxaad moodaa inuu go'ayo hadda miyay maqashaa si hadda miyay maqashaa salaamu calaykum si toos ayaan kuu maqlay qadka ugu jirtaa idil si toos ayaad qadka ugu jirtaa hadda soo ima maqashid si fiican baan kuu maqlaa halkaagii kasii ambaqaad marka horta taasuu ku mutaystay asagoo la shaqaynaya wada shaqayn fiican wada lahaayeen sheekh shariif madaxweynihii horeeto uu prime minister u ahaa sidaa aawadiis ayuu ku kalabsaday in shacabkii soomaaliyeed ay ku jeclaadaan waa kow tan labaad arrinta maanta uu madaxweynaha ku noqdayba waa shaqadii horeeto oo sida wanaagsan oo daacadda uu sheekh shariif uu la waday ama uu kula shaqaynayay ayuu maanta ku mutaystay walaalkay inuu madaxweyne noqdo way fahamsantay abu aad iyo aad waa kula socda okay maantaan kuu sheegayaa marka walaalkay hadduu maanta prime minister kale ama reer xididkiis uu ka fogaan lahaa maxamed cabdullaahi si fiican buu u wadi lahaa dowladdaas siduu u ballan qaaday inuu ku oofin lahaa si fiican ha laga dhegayso soomaaliyeed maxamed cabdullaahi qoorta wuxuu la galay reer xididkiis oo labada lugood ku dhegan iyo rag aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad oo maxay ahaydeen u ah nimankan dibadda ka yimaaday diaspora wada ah oo wada ciyaalo suuqa oon ilaahay ka baqayn ayuu maxamed lugta la galay si fiican ii dhegaysta maxamed raggan ayaa fashiliyey maxamed cabdullaahi raggan ayaa hostage ku haysta anigu 10 jeer waa idiin sheegay maxamed normal ma ahan hostage baa lagu haystaa maxamed cabdullaahi xafiiska ma fadhiyo hawshii loo dhiibayna ma qabto way maqlaysaa sooma abo aad iyo aad waa kula socdaa horeetana ma ahan laakiin hadduu la kulmi lahaa prime minister wanaagsan oo maxay ahaydeen aan xididkiisa ahayn oo qabiilada kaleeta hadduu la kulmi lahaa
ama uu dad ka wanaagsan dadka qofka bini aadanku caqli wada dhamaysan ma lahan aniga caqligayga maqan waxaa dhici karta inuu adig kugu jiro idil haddii aan soo qaato qodob ka mida qodobyada hadda la joogo ummadda soomaaliyeed ay hadal hayso dhiibistii maxaan ku idhahdaa qalbi dhagax kadib markii la dhiibay ummaddii soomaaliyeed shacbigii soomaaliyeed nooc walba isugu jiraanna ay ka kaceen arrintaas ayada ah xukuumaddii waxay ku wareejisay baarlamanka dowladda federaalka oo u horeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan baarlamanka waxaa laga sugayey inay kalfadhi ka yeeshaan oo halkaas go'aan ay ka soo saaraan ilaa haddana cid go'aan ka soo saartay oo arrintaas ayada ah ka hadashay ama markaasi wixii uga aadanaa ee markaasi dowlad lagu yaqaanay kasoo gudbisa ma jirto shaqadaas iyada sida qaaska loogu xilka saaray guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamanka waxaa ka mas-uul ah baarlamanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka soo lama on karo halkii loo saari lahaa soo sidaa lama dhihi karo halkii loo saari lahaa madaxweynaha maadaama shaqada dowladdu ay badan tahay xafiisyada iyo shaqada iyo wasaaradaha iyo waaxaha markaasi kala quseeyana ay qolo walba waaxdeedu ay qusayso hadday wanaag leedahana ayada si gaara loogu markaasi ammaanayo hadday ceeb keentana dhaliisheeda inay qaadato ay ku habboon tahay horta aniga aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan arrintaa horta uga xumahay dhiibistii qalbi dhagax oo la dhiibay haddana ay ka seexdeen baarlamaanka because annaga haddaan soomaali nahay dadka maanta mas-uulka naga ah waa baarlamaanka may maqlaya buu waa baarlamaanka dadka annaga mas-uulka naga ah waa baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose iyo baarlamaanka markay shacabkeenna waxaa annaga mas-uulkeenna noo haya oo dowladda noogu haya baarlamaanka horta arrintaas way ka seexdeen arrintii qalbi dhagax dhiibidiisii horta aad iyo aad baan uga xumahay siduu professor jawaari guddoomiyaha baarlamaanka uga seexday horta aadaan uga xumahay aadnana ka filanaynin baarlamaanka inay saan u dhaqmaayaan waxaan filanahay baarlamaanka kutubka ay mareen inay waxay u mareen iyo dhaartii shacabka soomaaliyeed ay mas-uulka naga yihiin horta inay qaadayaan oo ilaahay ka baqahayaan oo de xaqa siduu yahay ay fulinayaan markay dhaarta markii kutubka lagu saaro waa inaad ilaahay ka baqdaa waa inaada fiirsanin laaluush waa inaad caloosh u shaqaysta ahayn waa inaada laalaab gelin waa inaada been sheegin kutubku waa shay qaali ah qofka kutubka gacanta saara ee kutubka been ka sheega asaga ilaahay xaggiisa laga gubayaa horta aad baan uga xumahay kutubkay gacanta ku mareen oo professor jawaari uu gacanta ku maray hawshii laga rabay maanta inuu ka seexdo uu ilaa iyo hadda guddigii loo diray qalbi dhagax dhiibintiisii ilaa hadda laga hadli laayahay horta aadaan uga xumahay kow tan labaad qalbi dhagax arrimihiisii markii la dhiibay dhibaato badanaa dhacday okay qarax baa dhacay dad baa la xasuuqay qarax kalaa dhacay dowlad goboleeda dagaal lagu qaaday goormaa markaa arrintaa loo fariistaa markay shacabkii soomaaliyeed ayaa maskaxdoodii la mashquulinayaa shacabkii soomaaliyeed ayaa confuse laga dhigayaa shacabkii soomaaliyeed ayaa ruwaayad loo jilayaa adiga 10 qof tihid ma tii shalayto bilka hore ii samaysaa mise tii maanta dhacdaa ii samaysaa marka dhibaatadan haysta waxa waaye shacabkeennii soomaaliyeed ayaa ruwaayadna loo jilayaa filim baana loo jilayaa dadkii baa la xasuuqayaa dadkii baa la laynayaa dowlad goboleedkii baa dagaal lagu hayaa dagaal aan dhammaan baa socda marka dhibaatadan haysata miinis waxaa noo cad annaga dowladdii shalay aan dooranay inaysan meesha ka jirin ee dowlad ciyaar suuq tahay may fahamta abdo dowlad ciyaar suuq tahay dowlad idil adigoo aad u mahadsan soo lama oran karo ha abo waa ku maqlayaa thank you very much aad baad u mahadsan tahay siyaasadda Soomaaliya runtii aad bay u cakiran tahay waayo waxa faraha kula jira runtii wadamadan reer galbeedka oo waliba marmarka qaar aad u moodo inay noo soo adeegsanayeen qaybo kamida maxaan ku raahdaa wadamada dariska nala sida Ethiopia waxa la midka ah maadaama saas ay tahay siyaasiyiinta Soomaaliyana ma ahan madaxweynaha kaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada
danta Soomaaliya iyo masiirka Soomaaliyana wuxuu ka dhaxeeyaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxayna xaq u leeyihiin inay geed sare iyo mid gaabanba ay u fuulaan sidii markaasi loogu soo dabaali lahaa nabad iyo horumar iyo maxaan ku dhahdaaye istiraatiijiyad wanaagsan markaasi nolosha dalka Soomaaliya ay wax uga bedelmaan haddii aad eedeynayso culamaadiinka Soomaaliya ayagu laftirkooda daawanaya systemka dawladda Soomaaliya ay ku socoto siyaasiyiinta kale ee markaasi ayagu siyaasadda markaas siyaasiyiina laakiin banaanka ka ah ganacsatada iyo waxyaabaha la midka ayagu miyaysan markaasi wax eeda aysan ku lahayn arrimaha Soomaaliya mase adigu madaxweynaha kaliya un baad target gareynaysaa aad eedoo dhan dusha u saaraysaa maya aniga horta abow howlaha waa kala jiraan howlaha waddanka fiiri way kala jiraan nin walbaba howl buu leeyahay okay qaraxan iyo dhibaatada ka socda niman buu u doortay oo yiri wasiir baa tihiin nabadgelyada ammaanka suga fiiri nin walba howl buu leeyahay dhageyso waxaa la yiri nin baa wasiir loogu doortay waxaa lagu yiri nabadgelyadaad leedahay ammaanka waddankaad sugaysaa nin kale loo doortay waxaa lagu yiri wasiirka gaashaandhigaa tahay nin kale loo doortay waxaa la yiri wasiirka wariyaha tahay nin kale waxaa la yiri wasiirka caafimaadka tahay marka haddii waddankii uu amnigii gacantii ka baxa waxaa dembiga iskale wasiirka amniga loo dhiibay baa iskale waa in sharcigiisa lagu qaadaa ila qof walbaba wuxuu u taagan yahay shaqu u taagan yahay dhageyso marka adaa ku wata aad baad u mahadsantahay kaan dhex galo runtii su'aal aan ku weydiiyey waxay ahayd markii ugu horreysay in dowladdii federaalka Soomaaliya wareegta ay soo saareen ay ku casleen qaybo ka mid ah mas'uuliyiintii markaasi ayagu howlwadeenta u ahaa xagga amniga iyo waxyaabaha kale oo la halmaala sidoo kalena adigu waxyaabihii markii ugu horreysay aad ku eedeynaysay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa inuusan isbeddel samaynaynin cidda u arko inaysan markaasi shaqadeeda aysan kasoo baxaynin inuusan mas-uuliyaddii ka qaadaynin si qofkii mudnaa oo markaasi kursigaas u fadhiisiyo maantana waxaanu aragnaa in dhowr shakhsi oo markaasi dowladda ka mid ahaa micno gaar ay samayn mayso inaan hebel iyo hebel yidhaahdo in laga qaaday xilka marka ayadaas laftirkeeda soo laguma ammaani karo madaxweynaha Soomaaliya oo lama dhihi karo isbeddel ayuu rabaa isla markaasna weli indhihiisu way furan yihiin oo shakhsigii ama shakhsiyaadkii ama waaxdii ama wasiirka u arko hawshiisa inuusan ka soo baxaynin waa ku maqan yahay oo waa fiiro dheer yahay soo lama dhihi karo maya lama oran karo markee sababtaan kuu sheegayaa walaalo dhibaatadan hadda hore umay dhicin horey u soo dhacday ammaanka hadda dhibkaan dhib ugu horreeya maaha dadkii la xasuuqay dhiibidii la dhiibay qalbi dhagax askartii la laayay maxay ahayd qaraxii weynaayo hadda sooba ka dhacay qaraxii hadda ka dhacay hadda qaraxyo badan baa soo dhacay okay qaraxyo badan markay soo dhaceen ma ahan keliya in laga tuuro maxay ahayd sambalooshe iyo saacid waa in lagu daraa kow waa in lagu daraa wasiirka ammaanka ina islow ducaale mas-uul buu ka yahay asiga naftirkiisa ammaanka waa inuu sugo ammaanka xamar ducaale kow duqa magaalada waa in lagu daraa prime ministerka waa in lagu daraa waa inuu iska bedelaa because walaalo waxa weeye mas-uuliyad weyn weeye because dowladdu ma ahan in la isku tuurtuuro midda kale walaalkay wuxuu istaagay xitaa dhowr jeer baan arkay asagoo dhar military gashtay oo militarka dhahaya anigu anaa military oo maxay ahaydeen gaashaandhigka anaa madax u ah marka shaqada naftirkiisa asaga nabadgelyada inuu sugo xaq bay ku leedahay markii asagaa madaxweynaha waddankaa wixii ka dhacana asaa mas-uulka ah dadkaa dhintay ee la xasuuqayana aakhiri adduunya asaa loo haystaa because annaga dadka kale ma dooranin annaga asagaan dooranay asaana mas-uul ka ah maaha annaga uma dooranin asaga intuu madaxtooyada iska fadhiisto inuu iska aamuso qol ku jiro asaga waxaan u dooranay hadduu arko marka hore actionka la qaado inuu isla markii intuu soo baxo actionka qaado uu bedelo dadkii shaqada ku lahaa oo shaqadooda gabay ma aamusnaantu aamusay iyo asaga xendada uu ku jiro rag ugu jiro oo dowladda maamulanayo waxaan ogahay walaalsan shaqo ku lahayn rag kale uu maamulanayo markii la doorto adiga markii lagu doorto adiga shaqadaada hataa ka soo bixi lagu dhibay waa ka soo bixi cabdullaahi shaqadiisa lama soo bixin idil adigoo raalli ah qodobadii aad waa maqlaysaa soo maaha idil waa maqlaysaa soo maaha
واكو مقلية صح aad baad u mahadsan tahay daliishii aad u soo jeedisay madaxweynaha dowladda federaalka waxaa ka mid ahayd in qarashaadkii iyo maxaan ku idhahdaayey waajibaadkii inay hormariyaan iyo weliba sidoo kale amnigii waxyaabihii ay rabeen la rabay inay ku qabtaan inay uga baxeen yani safarro iyo maxaan ku idhahdaayey waxyaabaha lamidka ah sidaan ognahana madaxweynaha iyo prime ministerka markii la fiiriyo labadooda qofka socoshada badan waxaad u moodaa in prime ministerku uu safarkiisu badan yahay marka arrintaas soo leysma lahan weli ballanqaadkii madaxweynaha iyo sidoo u jeclaa inuu dhaqaalaha dowladda iyo waxyaabaha ugu talagalo markaas inuu seefgaray ayuu weli ku taagan yahay soo lama dhihi karo oo arrintaas lagu ammaani karo maya ani haddaan kuu sheegayaa prime ministerka iyo si fiican ii dhegaysta ninka asagoo wax doortay baxay oo isla markii diyaaradda ka dhigtay guri waa maxamed cabdullaahi si fiican ii dhegayso labadan beri ayaa ninkan madaxweyne ka yahay madaxweyne iyo prime minister ka yahay laakiin markii hore oo waddanku buuq ka taagan yahay sii cararhayay oo waddanku dhaawacyo iyo dhimasho ka taagan yahay oo dad meydad jooga sii cararhayay oo maxay hayteen xitaan aqoonin xitaa war ha bixina shacabkii adigu ku kala daadsan yahay arrin waxa timid emergency baa timid bal arrinta xalli markaas arrimihii aad bixay sidoo kale u bax aana fiirinin mar allaana markuu dhibaato ka dhaco maxamed cabdullaahi waa cararaa dhegayso waa dhaliisha uu leeyahay mar allaana waddanka dhibaato markay ka dhacdo oo dhiig badan daadato oo qarax dhaco oo la isqabsado oo dagaalo iyo gobolada maxay hayteen lagu duulo maxamed cabdullaahi waa cararaa xaq ma aha inuu cararo markay annaga asagaan dooranay annagu khayra ma dooranin oo fahad yaasiin idil waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo waxaa jira in maalmahan dambe qaraxyo isdaba jooga ay ka dhacayeen magaalada muqdisho ilaahay ha ka hayo dib uguma celiyo deegaanada allaha ka jooji qaraxaan waa hayabu idil way maqlaysaan waa ku maqlaya walaal waa ku maqlaysa maalmahan dambe qaraxyo isdaba jooga ayaa ka dhacayay dalka Soomaaliya markii ay qaraxyadu dhacaana waxaa jirtay in markaasi ciidamada Soomaaliya ama maxaan ku raadayay sirdoonka ay marmarka qaar ay dhacaysay inay ka soo hormaraan ciidamada ajnabi oo ayagu markaasi baaris ku sameynayay degdeg ah oo maaragtay markaasi qaraxyada firirada iyo waxyaabaha markaasi ma garanayo laakiin dabcan waxyaabaha ayagu si qaas ah ay u markaasi baarayeen ay ka kala habeynayeen markaasna ay maaragtay ay ka tegayeen adigu within 5 minutes ay ku dhameynayeen arrintaas oo Faransiiska iyo Ingiriisku ay kamid ahaayeen waliba qaraxyo kala nooc ah sidoo kalena ay qaarkood ugu yimaadeen waxaan ogsoonahay qaybo kamid ah in Mareykanka loo diray qaar kamid ah Ingiriiskan hadda aan joogo loo soo diray markaasi Paris loogu soo diray qaybo kamid ah Russia iyo markaasi Europe kale loo diray maxay tahay waa la arki jiray qaraxyo lagu sameeyo ama laga fuliyo gudaha dalka Soomaaliya laakiin sidii saldhigyada cusub looga furay dalka Soomaaliya qaraxyada hadda ka dhaca waxaad moodaa dawladaha markaasi ama basementiga Soomaaliya ku leh ama markaasi doonaya inay ka yeeshaan ama sidoo kale sirdoonada caalamka markaasi ka jira gudaha waddanka Soomaaliya ku sugan baaris degdega oo markaasi ka horeysa tii dawladii federaalka Soomaaliya ahayd ayay qaadaan marka arrintaasi maxay tahay ayaad is leedahay xageesa ka imaatay wallaahi horta qaraxyada waddankeena ka socda horta wadamo badan baa ku lug leh hay daawadayaal waxaan jeclaan lahaa inaad sheer gareysaan si abo may maqlaysaa waddankeena waa laga dambeeyaa qaraxyada waddankeena waana loogu talagalay in waddankeena dhulka la dhigo shacabkiina laayo qaraxyada ay qaadanahayaan Yurub ay u qaadanahayaan inay ku soo baartaana waa wax ayaga gaar u ah barkee maadaama annaga waddankeenu uusan ahayn waddan annaga aan iskeen isku istaagi karin oo weli dadkaan iyo dadkaan ajnabiga aan kusayno maadaama annagu iska juhalaa aan ugu baaran weli ay iska aamusaan markay way garanayaan qaraxan dadka soo sameeyay meeshay ka timid meesha laga keenay
rabaan burburkeena iyo dhibaatadeena annaga inoo taala يا codkaaga ayaa go'aya codkaaga ayaa go'aya hadda mii maqashaa hadda mii maqashaa hadda mii maqashaa si fiican mii maqashaa waa dhamaatay hawado aad iyo aad arrinta annaga dhibaatadana haysata abbo waxaan noqonay macaan jecel hilibkaasaana loo tuurahayaa dalkeena iyo dadkeena iyo waddankeena baabi'iisa shilin baan ku dhaafsanaynaa marka dadkii annaga maxay ahayd shacabka u istaagay wuxuu qaban lahaa lacag hoosta laga geliyo sidee marka annaga aan u xallin karno ma xallin karno dhibkii annagu nagu socdaa shacabka maxaakimiinta ku socdaa ay garatay marka anigu waxaan oran lahaa soomaaliyey cadqaatinimada iska daaya siba baarlamaanka dadka baarlamaanka ku jiro annagaa mas-uul naga tihiin kutub baa arkeen dowladan hanala dhaafinin soomaali ah oo wadaya hanaloo saaro kursiga because annaga dowladdan dhibaataan ku qabnaa 9 bilood dhibaataan ku qabnaa shacab waa nin hosta maamulka dadkiisanin sirkalkaas aragteen ila aragteen ka hadlaa been ka hadlo marka soomaaliyey aan dhammaanaye aan maxay hayteen aan usha dhexda ka qabsano professor jawaari waxaan u sheegayaa intaasoo dad adaa ugu idil codkaaga ayaa go'aya marka adigoon qadka ka bixin idil codkaaga ayaa go'aya marka adigoon qadka ka bixin waxaan jeclaan lahaa inaad internetkaaga aad sheegarayso ama aad u dhawaato meesha arealkeedu oo ku wanaagsan yahay inaad ku hadasho hadduu ilaah yidhaahdo akhyaarta sharafta le aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa inaad sheergaraysaan si aad u gaarsiisaan dhammaantiin inta kale oo markaasi yani jecel inay xogta nala wadaagto waxaan jeclaan lahaa inaad sheergaraysaan si aad u gaarsiisaan akhyaarta kale ee markaasi jecel inay nala wadaagto daawadayaal barnaamijkani waa barnaamij la yidhaahdo saadaasha aan ugu talagalnay inaanu ku wareysano akhyaarta ama siyaasiyiinta ama dadka markaasi ayagu daneeya ama markaasi xitaa indheeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya hadba heerkay marayso waxaanu jecelnahay inaan marba qof idiin soo casuuno meel walba joogan haddii America joogan haddii Yurub joogan iyo haddii Soomaaliya joogan sidoo kalena xitaa waxaan jeclahay inaan dib idinkugu soo casuubi doono qayb ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ka tirsan oo aan rajeynayo dhawaan inaan ayagana sidaan oo kale idinkugu soo galiyay qadka habeenada soo socda idil hadda waxaan u maleynayaa codkaagu waa wanaagsan yahay qadkaagu sidoo hadda soo okay maaha buu aad iyo aad hadda okay waha marka aniga aad iyo aad waxaan uga codsanahayaa aqalka sare iyo aqalka hoose siiba jawaari waxaan ka codsanayaa dowladdan waad aragtaan dowladdan siday ku socoto waad aragtaan ha sugina inaan shacabka Soomaali baaba'do ha sugina xamar in shacabka Soomaali laga xasuuqo ha sugina dhibaato ka weyn inay dhacdo ha sugina maxay ahayd waddanka inuu burburo oo dagaal hor la uu dhaco waxaan idinka codsanayaa NF dhibaatadii ku dhacday shacabkii Soomaaliyeed way nagu dhacday dhibaatadii nagu dhacday way nagu dhacday ma soo noqonayso intii dhimatayna Allah u naxariisi intii caafimaad qabtana Allah u siyaadi intii dhaawacna Allah ka kiciyo waxaan leeyahay dowladdan ninkaad saarateen oo ninkaad doorateen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne kama ahan dowladda waxaa madaxweyne waxaan idinka codsanayaa
waxaan aad ugu tahay naga go'aya hadda mii maqasha waa ku maqlaa waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo ku saabsan aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo dad badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay aaminsan yihiin adigu si shakhsiyana inaad dawladda aad ugu tahay mucaarad oo markaasi aysan ahayn mid adiga markaasi kali laabka inaad wax hagaajiso laakiin dagaal ama arrin shakhsi ahaaneed oo kala dhaxaysa madaxweynaha ama markaasi waxyaabaha ka ag dhawey markaasi siyaasadda ku lamaaneeyo oo kale iyo mabaadi'da aad ka aaminsan tahay inay sababtay inaad dawladda si cad uga soo horjeedo marka maadaama dad badan ay aaminsan yihiin inaad si personaliya ama arrin gaar ah aad adigu dawladda uga yani waa sida hadalka ay u dhigayaan dad badani oo qaybo ka mid ah ay xitaa ku soo qorayaan page-ka hadda sidaan ka daalacanayo maaragtay facebooka maxaad arrintaas adigu aad ku leedahay horta aniga dawladda walaalkay anigana wax oo colaada aniga asagana dhex yaalana midna Soomaalida shacabka soo doortay horta aan kamid ahay aniga si fiican aan leeyahay anigu dawlad baan rabaa si fiican aan leeyahay anigu qurbaan ku daalay oo intaasoo sanaan deganaa wadankayga waxaan u baahanahay nabadgelyo inaan ugu noqdo si fiican leeyahay waxa weeye dawladdan aan tahayna waan rabaa oo balantay qaad ka soo badana waan ayidayaa haddaysan ka soo bixinna ma ayidayo waana daa daliil u ah ilaa iyo muqdisho magaalada muqdisho ahayd maxaa ka taagan marxaladda ka taagan ma la ii sheegi karaa ka jirta mise dhibaato badan baa ka jirta waa su'aal aan weydiinayo shacabka Soomaaliya inay jawaabaan taasay tahay baan idiin sheegayaa maxamed cabdullaahi magaciisa buu wataa qaar kasta uu sameeyo magaca aabahay maxamed ma dhaho farmaajo la yiraahdaa marka maadaama uu dhibaato badan uu wadankii uu geystay ka hadlo dadka maxamed ma oranayaan waxay leeyihiin farmaajo haye marka farmaajo idil codkaaga aad iga gogo'ayo magaca aabahay maanta هذا مي مقشة أبو هذا مي مقشة واكو مقلا دقيقة دي وقدام بي last 2 minutes أريدي أدهيسي وحبا كاما أنا مقلين مركا وحن جعلها هنا دوغو سو عليسو سي بيان وحان كو دهي أبو محمد عبد الله مقعو وتوابهي مقعيسة farmaajo lama dhaho farmaajo aabahay baa yiraahdaa maxamed markuu dambi sameeyo wadanka wax ka dhacaan farmaajo la haystaa magaca marka aniga aan u soo istaagay miidiyaha magaca aabahay in la wasaqeeyaan diidanahay asaga haduusan shaqo ku lahayn uu ku talagalay magaca aabahay farmaajo inuu wasaqeeyo anigu ma doonayo in aabahay magaciisa la wasaqeeyo may garatay aabahay corruption ma aqoonin aabahay nin xalaal uquutu ahaa aabahay nin wadani buu ahaa aabahay maxay ahaydeen maxay dad maxasuuqin aabahay dad malaynin aabahay magaciisa ma la isticmaalin marka annaga magaca aabahay dad baa isticmaalaya dad baa raba dadka inay ku laayaan dad baa raba inay dadka ku xasuuqaan anigu waxaan u soo istaagay magaca aabahay inaana la wasaqaynin dadka xasuuqaya ee ugu talagalay shacabka Soomaaliyeed inay xasuuqaan ee magaciisa ku laynahayana inaan Soomaali farta ugu fiiqo marka sidaa aawadeed ayaan u soo istaagay inaan aabahay magaciisa aniga dhowro oo aabahay magaciisa aan maxay ahaydeen aan difaaco marka sababta aawadees ayaan maxamed cabdullaahi ugu dhaganahay maxamed cabdullaahi magaca aabahay haduu bedelo waan deynayaa
hadduu bedelo waan daynayaa uu magaca kale la baxo oo naynaasta aabbahay tuuro markii khaladka magacaas kale ku dhacay magaca aabbahay kuma dhacayo laakiin hadda waddanka wax allaala wixii ka qasma dhibaatadii waddanka ku dhacda qaraxa ku dhaca dadka lagu laayo dhibaatada ka dhaca ninkii la dhiiba farmaajo dhiibaa la leeyahay asagaa dhiibaa la leeyahay marka magaca aabbahay muxuu wasaqaynhayaa hadduusan dowladdan maamulkeeda qaadi karin ay ka weyn tahay uusan shaqo ku lahaan karin bannaanka ha soo baxay maxamed cabdullaahi ha is casilo inaadeer intaan uusan is casilin haddii uu is casilo madaxweynuhu xukuumaddii oo dhan iyo dowladdii oo dhan baa burburaysa marka xitaa haddii tahay dowlad xun soo ma dhaanto Soomaalidu waxay yiraahdaan dowlad laan dowlad xun baa dhaantee walba teenana hanoo sii taagnaato soo taasi kama wanaagsana wad isleedahay ardi way baabisay shacabkii inaga burburi lahayd يا waxaad tiri dowladdani dabcan uma qalanto inay sii socoto dowladdan ha laga taqaluso ayaan u fahmay hadalkaaga hade waxaan u leeyahay sababtaan aan idil aan ku dhameeyo Soomaaliduna waxay tiri dowlad la'aan dowlad xun baa dhaanta marka intii at least dal aan dowlad lahayn shacbi aan dowlad iyo kala dambeyn iyo constitution iyo wax nidaamaba aan lahayn aan ahaan lahayn soo kama wanaagsana haba noo xumaatay dowladdeenu inay noo jirto waxaa laga yaabaa haddii uu muddo qaato muddo dibadeed 4 sano ha dhamaysto doorasho kale inay imaato shakhsi kale oo markaas ka wanaagsan in la helaa laga yaabaa dabcan laakiin soo kama wanaagsan inaan dowladdeena sideena ku ilaashano dowladda waan haysan karnaa laakiin ma raalli baa laga yahay in shacabkii Soomaaliyeed la xasuuqo in shacabkii xamar laga tirtiro ma raalli baa laga yahay su'aal baa ku weydiinaya waata idil adoo raalli ah idil farmaajo waxaa jirtay dowladdan hadda oo madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo horteed xasan sheekh miduu mas-uul ka ahaa madaxweyne u ahaa falalka dilka iyo qaraxu sidaas ayay u socdeen sheekh shariif ayaa ka horreeyey oo isagu markaasi runtii laftirkiisu wax badan qabtay khayr allah siiyo qaraxyadu sidaa bay u socdeen cabdullaahi yuusuf axmed baa ka horreeyey weeraro cad iyo qaraxyo iyo weliba dagaal ay dhalinyaro aad u fara badan ee Soomaalida ay ku dhinteen ayaa ka dhacay marka waa tii cabdiqaasim baa ka horreysay waxaas oo dhani dabcan dhibaatooyin laftirkoodu ay la kulmeen ayaa jiray oo markaasi ay la kowsadeen sidoo kale waxaa jirta in horteed dowladdii cabdiqaasim 2000 markii lasoo doortay horteed warloodyadasyo iyo maxaan ku yidhaahdaay hogaamin kooxadyaal iyo arrimo qabiil iyo waxyaabahaasi ay dadku ku nafweyn jireen oo isku dagaalami jireen iskuna dili jireen marka inta madaxweynaha cabdullaahi farmaajo oo dalka mas-uulka ka yahay wax qaas ah oo isaga dhib ku ah ama gaar ku ah ma jirto soo lama dhihi karo madaxdii kale oo dalka soo martay iyo dadkii kale oo kala mid yahay maadaama ay jiraan baraysharo dhinac walba ka imaanaya iyo sidoo kale dad ayagu dana gaara kale dalka Soomaaliya oo markaasi doonaya inaysan nabadda dalka Soomaaliya aysan saldhiganin soo arrinta dhinaca looma dhigi karo inta lagu eedeyn lahaa madaxweynaha farmaajo kaligii okay walaal horta dhageyso sheekh shariif waa runtaa su'aal fiican baad weydiisay waana kaaga jawaabayaa dhageyso sheekh shariif iyo xasan sheekh aan kaaga sheekeynaya markii dhageyso sheekh shariif iyo xasan sheekh waxay ahaayeen dad dowladda gacanta ku haya dad madaxweynenimadoodu bannaanka taalay ahaayeen dhageyso xasan sheekh markuu ahaa madaxweyne markuu ahaa almost dhowr prime minister waa bedelay asagana hawsha isku haya kii prime ministerka iyo kii madaxweynahaba asagaa isku hayay ninkii prime minister warkiisa maqal waayna garabka ka tuuray 3 bilood soo joogin buu oran jiray siibax kiisu wuu caddaa xasan sheekh qaraxna waa ka dhacayay laakiin qaraxu way isdhaameen may garatay okay sheekh shariifna sidaas uu ahaa nin madaxtinimadiisii iyo madaxweynadiisii bannaanka u muujisan buu ahaa nin kartile buu ahaa nin meel soo istaagay oo shacabkiisa aan ka dhuumanaynin buu ahaa nin isqarinaya ma ahayn nin Soomaali ah oo dhalad ah oo wadani ah oo waddanka u soo dagaalamayna hoostooda lagalama bixin oo Ethiopian looma dhiibin si fiican ii dhageyso hoostooda inta lagala baxay Ethiopian looma dhiibin oo prime minister intuu soo qabtay ma uga dhiibin waa isfahamsanna haddaan Soomaali nahay go'aanka lagu dhiibay qalbi dhagax madaxweynuhu kaligii mas-uulka ma ahayn prime ministerku waa la ogaa gudoomiyaha baarlamaanku waa la ogaa assemblygu waa la ogaa sidoo kalena gudoomiyaha gobolka banaadir arrintaas waxba uu ka ogaa marka eedda aad qaaska uga dhigayso qolooyinka laftirkoodu soo qayb kama ahan
اوكي مركا اوكي قيبي كيهين محو محمد عبد الله اكشن كو تسين واي شعبك الصومالي محو برايم مينستر كو بدلي واي محو رجع امنيغا هيا او ديبي محو بدلي واي محو شعب كو سو هور استاي واي محو دونتي ابو محو دونتي سؤاشا تان كو يديني هاي محو دونتي برايم مينستر كي ديبي با بناك سو استاغي اسغ وا دونتي marka madaxweyne maaha madaxweyne waxa khayr labada kursina khayr isku haysta markay madaxweyne maaha mas'uul Soomaaliyeed ma qaadi karo because waxay ahayd action inuu qaado inuu first prime minister ka dhiibay inuu bedelo shacabka ku qanciyo maxay amniga bedelo nimankii ka dambeeyay uu bedelo uu shacabka u soo baxo uu raali garin si approachaysiyo uu Ethiopian-ka la xiriiro uu yiraahdo ninkaas hana loo soo celiyo aniga ma ogeyn maxamed cabdullaahi muxuu qabtay محمد عبد الله الشعب كنوسود استاجي إمي سويك بالسوق ورعاو مدحويني إمي سوء مصنع كبعدين واتن دقارتي بريرة لغو قادت كاللاي حكوكا بحي وآمصي هابدنا واتي أسكرتي للاي هابدنا وآمصي فير انتقاد وقران كل شيء هابدنا نهاية صوبة هابدنا دولة قولات كادقار لغو قادي وحو قبطي ملا وآمصي haddana wuxuu soo istaagay maxay hayteen sooba haddana qarax weyn ka dhacay ma garatay markaasuu banaanka u soo baxay oo bag asagoo ordahay asagu markii la rabana banaanka la soo saaraa markii la rabana maqalka lagu xareeyaa madaxweyne ma taas madaxweyne mas'uuliyadu qaaday waa inuu fuliyaa sawabu waa inuu mas'uuliyadiisa buu gabay maxamed cabdullaahi marka maxamed cabdullaahi Soomaali madaxweyne uma ahe khayra madaxweyne برايم مينستر لبدا كرسينا اسكو هايستا سبب hadalladaada waxa u badan marmarka qaar oo waliba ku soo celcelinaysay inaad leedahay khayre wuxuu isku haystaa mas'uuliyadii madaxtinimo iyo tii ra'iisul wasaarenimo dabcan dawladuna way qaybsanahay sidoo kalena dokumentiyo cadaan ah oo ka soo baxay oo si cad social media loo soo dhigayay ama sidaas oo kaleba wasaaradda warfaafinta ee markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga hadlaysay go'aamo ay markaasi hoosta kaga xariiqan yihiin saxiixa dawladda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya saxiixiisa ayaa lagu arkayay marka arinta ah oo cawada dhan ku soo laalaabanayso in prime ministerku oo asagu xukuumadoo dhan oo macnaha hoosti gareynayo soo arintaas lama dhigi karo xogaa iyo waxyaabahan cadeynta oo hadii jeer aan aragno markaasi ay kamid tahay go'aamada oo fulinayo madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo ay kamid tahay maantadan xilka qaadista uu ku sameeyay qaar kamida madaxda markaasi ayagu ama mas'uuliyiinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya markii la fiiriyo soo lama dhigi karo xogaa sidaad u aragto iyo sida dhaqdhaqaaqa dawladda u socoto ama siyaasadda Soomaaliya waa kala labo may abowe arinta maanta dhacday horta is too late way arintan labada nin ee lagu casilay maanta qalad baa lagu casilay si fiican ii dhageyso dhowr jeerna waa ku soo celiyay because fair maahan laba nin kaliya in la casilo may maqlaysaa abo midda labaad qaladaadka fiiri markaan ku leeyahay oo laba dhowr jeerna ku soo celiyay khayre ayaa ah prime minister madaxweyne ka because anigu madaxtooyada waa la socdaa khayre asaga wasiirada dalbada asaga meelaha maxay tahay maaliyadda taagan asaga dhaqaalaha soo gura asaga meel kasta taagan asaga meel kasta xataa shirarka xitaa asaga fariista ninkii la doortay ninkii madaxweynaha ahaa markii anu intaan wax arkayo dhan khayre ordayaan arkaan maxamed ma arkin okay haddii qalad la galay khaladku waxay tahay dadka oo dhan in lagu wada qaado khayre prime ministerka khaladka uu galay waxay ahayd ninkii la dhiibay uu mas'uul ka ahaa in asaga la casilu ahay asaga inuu haysto ma ahayn taas ayaa cadaynaysa khayre labada power inuu isku haysto ninkii muxuu leeyahay markee adiga markaa madaxweyne tahay mas'uul baad wadanka ka tahay wax allaala wixii wadanka ka halaaban adaa mas'uul ka ah ifaham abo wadanka wixii ka halaaba hadaad ogeen iyo hadii kaleba adaa mas'uul ka ah okay khayre khaladaadka uu sameeynayo haduusan maxamed action ka qaadin raali uga yahay khayre ayaa raali looga yahay dhibaatada wadanka ka dhacaysa waxyaalaha uu sameeynayo taas aawadeed taas haddaan u kaasano ganacsatada Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ku dhaqan may jirtaa caqabad markaasi ayagu ay ku hayaan maadaama maalmahan dambe
isbedel xagga maxaan ku rahdaa telecommunicationka iyo maxaan ku rahdaa aerial numberkii markaasi dowladda Soomaaliya ay xaqa u lahaan jirtay ama ay lahaydba la sheegay in laga soo wareejiyo markaasi shirkadaha sida private-ka ah oo isticmaalayay ee markaasi ayagu ku ganacsanayay arrimahaas macnaha laftirkoodu saameyn arrimaha amniga ma ku yeelan kartaa baad is leedahay yes way ku yeelan kartaa because arrimaha amniga horta kow ganacsiyaasha ninka hadda canshuurta ku qaaligareeyay ee ganacsiyaasha lugta ku qasahaya waa khayre amniguna mas-uul kama noqon kara amnigu waxaa mas-uul ka ah ciidanka waddanka maamulo ayaa amniga mas-uul ka ah ciidanka waa in lacagtooda mushaharkooda la siiyaa ciidanka amniga waa in xaqooda la siiyaa waa in la howlgeliyaa amniga waxaa shaqo ku leh ninka wasiirka amniga gacanta ku haya ayaa iskale ganacsade waa ganacsade ganacsade waa ganacsade business waa business waa tahay waxaa jirtay maalmihii lasoo dhaafay weliba bilihii aan idhaahdo in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi taageertay arrintii ay markaasi qadar la rabay in looga macnaha markaasi arrintii xulufaysiga ahayd ay ka hortimaaday dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo markaasi sheegtay dowladda federaalka ahayd inay dhexdhexaad ka tahay ololihii Sacuudiga oo waday ee markaasi la doonayay in lagu markaasi dumiyaamo looga hor yimaado ama cunaqabatayn dhinac walba lagu saaro waddankaasi qadar ayadoo taasi ay dhacday madaxweynaha dowladda iyo dowladda Soomaaliyana ay si geesinimo leh oo dadnimo leh ay go'aan uga qaadatay arrintaas ayada ah waxaa jirtay in qaar ka mid ah maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya ka mid ah ee markaasi maamul goboleedyada ah dabcan anigu governors baan oran karaa laakiin ayagu maamul goboleedyo madax bay sheegtaan madaxweynayaashaasi inay heshiis markaasi ka dhan kii dowladda federaalka Soomaaliya ay gaartay oo ay la gaartay oo ay ku muujisay ayadoo matalaysa dowladda iyo shacbiga iyo dalka waliba ay ku gaartay inay gaal mareen oo markaasi dhinac kale inta ka weecdeen ay heshiis gaar ah Sacuudiga la galeen arrintaas ayada markii aad fiiriso khilaafaadkii ay dhalisay arrintaasi oo iska horimaadka ahayd maadaama hadalkaaga oo ku jiray hadday tahay in dowladdu ay ataagtay oo weerar ay ku qaatay siyaasadeed markaasi maamul goboleedyada ma la dhihi karaa maamul goboleedyada laftirkoodu arrintaas ayada way ku qaldanaayeen adiga maxay kula tahay arrintaasi horta arrinta qadar nibaa qadar madaxtooyada u fadhiya si fiican ay dhegeysato qadar ku ay ayaa hor madaxtooyada qadar si fiican ay dhegeysato anagu haddaan Soomaali nahay horta qadar waa ognahay waxay tahay qadarna waa lala socdaa waxay tahay qadarna inay maxay argagixiso tahayna waa la ogyahay qadarna in adduweynaha oo dhan laga takoorayna waan ognahay okay annaga ninkii argagixisada ahaa markuu madaxtooyada noo fadhiyo oo annaga qadar nagu xiraayo oo lacagti qadar iyo qaraxa ay keentay hoosta naga soo gelinayo see dowlad noogu imaanay marka ilaa Fahad Yaasiin baa noo dhex fadhiya ilaa Fahad Yaasiin ayaa qaraxa kow ka qadarna ku xirane qaraxda waaweyn khatarta ay waaweyn baabuurta lagu xiro keenahaye asagana mas'uulka asagana lacag soo siisa dabcan waxaan rajaynayaa markaan waa la soo wacay waa jira okay haye sii wad soo wacanina hay soo wacanina dadka qadka ku jira aniga hay soo wacanina waxba ha raacin ku jir un ka gudub waxa laga yaabaa qolad ka soo horjeeda aragtida halo may maqashaa si fiican baan ku maqlaa marka Abdullaahi heshiis baan ka noqonaynaa haddana hoosta u aadaya arrinta maamul goboleedyadu ay inta dowladdii federaalka ahayd ay baal mareen oo ay gees mareen oo ay ka gudbeen ay la soo galeen go'aan ka gedisan go'aankii dhexdhexaadnimada dowladdu ay ka qaadatay dowladda Sacuudiga maxaad ka leedahay arrintaas ayada ma ku saxan yihiin baad leedahay mase waa ku qaldanay waa ku qadiso waana marin habaabsantay dhageyso abo hay baan ku noqonaynaa horta way ku qaldan yihiin markay dhexdhexaad
dhexdhexaad kama noqon kartid adoo waxba haysan codkaaga ayaa xoogaa waxaad moodaa inuu go'ayo akhyaari aad baad u mahadsan tihiin inta idil codkeedu oo si wanaagsan u soo laabanayo oo connectionkeedu oo settle noqonayo insha Allah aad baad u mahadsan tihiin maanta waxaanu ku falanqeynaynay halkan barnaamij aanu islahayn wax badan ayaad maaragtay la qaybsanaysaan oo la sheergaraynaysaan walaalaha Soomaaliyeed ee markaasi ayagu social mediaha u dhuunduleela sidoo kale barnaamij saadaasha oo hadba aan uga warano xaaladda siyaasadeed dalka sida uu marayo waxa uu yahay iyo hadba waxa soo cusboonaada waxaana jecelahay inaan ku soo casuumo aqoon-yahano siyaasiyiin iyo qaybo kamid ah xubnaha baarlamaanka oo aan dhawaan laftirkooda rajaynayo inay soo ka mid noqdaan barnaamijkan ha codkaagu okay ma yahay hadda ma maqashaa waa ku maqlaa hadda si kaleera qodobkii maamul goboleedyada iyo dhexdhexaadkii dawladdu ay ka qaadato ay kasoo horjeesteen halkii kasii ambaqaad waa tahay daawadayaal weli idil waxaad moodaa inay hawada ka maqan tahay hase yeeshee waxaan rajaynayaa dhowaan inay dib inoogu soo noqon doonto waxyaabaha aanu ka hadlaynana waxay ahayd maanta falanqayn aanu ugu talagalnay inaan siyaasadda xagga amniga qaraxyada maalmahan dambe soo cusboonaaday iyo weliba isqabsiga xagga dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada aanu ku falanqayno idil codka waxaad moodaa haddii uu fiican waa ku jira qadka walaal tafadal marka walaalo waxa weeye khaladka meeshii aan istaagnay waxa waaye markuu yiri maxamed cabdullaahi annaga dhexdhexaadaan ka nahay because ninkii al-shabaab ku xirnaa ee qadar soo damiinatay ee qadar damiinta ka ah ayaa annaga madaxtooyada noo fadhida al-shabaabki weynaa ee la leeyahay fahad yaasiin ayaa madaxtooyada noo fadhiya may garatay asaana wakiil ka ah dowladda qadar asayna meesha soo dhigatay ma haysano adduweynaha waxaan u baahanay caawimaad shilin ma haysano waa ku qaldan yahay maxamed cabdullaahi inuu yiraahdo dhexdhexaad baan ka nahay because maadaama uusan baawar haysanin maadaama loo taliyo maadaama uu sirkal ku jiro awaad ayuu ku yiri dhexdhexaad ka nahay Soomaaliya saa moodaana maaha maxamed cabdullaahi waa nin meel lagu haysto waa nin aan go'aankiisa meel marin karin waa nin aan meel istaagi karin waa nin sirga lagu haysto oo group meel ku xirteen marka sababta aawadees ayaa ka liftay cabdullaahi inuu yiraahdo qorina fariisto aanti dhaweed uu Sacuudiga aadayay waa la diray groupkan uu dhex fadhiyaa diray waxa yiri Sacuudiga lacag nooga keen orod bax Sacuudiga lacag nooga doon iswada maaha waa nin la wado waa nin sirkal ku jiro waa nin dad xero ugu jiro oo guri ku xiran oo la maamusho oo magaciisa la isticmaalo ko lacag ka soo qaadantay ka saar faadasiin gacanta ka saar iyo khayr ayaga ciriib ku wada qaybsaday marka lacagta la soo siinayo ma shacabka loogu soo dhiibay inuu wax ugu qabto mise inay ayagu corruption ku sameeyaan ay dhacaan dadka shacabka meesha taala waa tahay idil runtii waqtiga aad inoo haya codkaaguna waa yara go'aya sidaas darteed maadaama barnaamijkan aad sida tooska ugu xiran tahay saadaasha la yiraahdo waxaan rajaynayaa inaan dib iskugu soo laaban doono inta aanan micnaha barnaamijka ka bixin ugu dambays maxaad dalka Soomaaliya dadka ku nool ee la yiraahdo Soomaali aad kula dardaarmaysaa oo aad tala ahaan u soo jeedinaysaa هيا سومالي الشعب هذا من كادورتين مالية محمد عبد الله فرمان ورتاد بانو ما تضيع الشعب الصومالي دي يقع دي بقى استاد بانو وعاد وقعت soo gisay dhibaatada lagu hayo ayaa soo gelisay maadkii uu jabay shacabka Soomaaliyeed shabaab madaxtooyada
inay waa dowladda waa inaad ka kacdaa waa inaad dowlad cadila doontaan oo dowladdan iska bedeshaan al-shabaab labaad nimanka baarlamaanka iyo saraakiilka hoose waxaan ka codsanayaa dowladdan annaga idinka nooga ah naga ah waad ka seexatay shacabka Soomaaliyeed waad ka seexateen oo sidaan rabnay noogumadii soo harbixin waad isku ladeen shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dowladdan ay u soo jeesatay shacabka Soomaaliyeed idil codkaaga ayaa go'aya idil codkaaga ayaa go'aya waxaan rajaynayaa dib ayaan u kulmi doonaa barnaamijku insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo habeenada soo socda ayaanu mar labaad insha Allah dib isku soo laaban doonaa oo waxyaabaha madaxda la casilay positionkooda ciddii gasha iyo weliba dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee maalmaha la soo dhaafay iskaga soo daba dhacay oo shalay ahayd iyo weliba 14 October oo ayaduna dad aad u fara badan ay ku xasuuqmeen marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo in badan oo kamid ah aqoon-yahanada ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta fanaaniinta iyo weliba xubnaha kamid ah baarlamaanka oo rajaynayo qaarkood hore u xiriiray inaan dib ugu soo casuumi doono kuwa dawladda taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda intaba dabcan anigu waxaan ahay shakhsi u dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed maadaama aan ahay saxafi Soomaaliyeed ma jecli inaan cid bin aadan aan u gafo ama qof markaasi marti igu ah barnaamijka oo macnaha u gafo walow ay runtii idil ahayd qof aad u controlan aan uga mahad celinayo sida quruxda badan leh ee sharafta badan leh ee wanaaga ku jiro ee barnaamijka nooga la qayb qaadatay weliba ixtiraamkuna oo ku bannaa oo halkaasi aad ay dadku u ixtiraamaysay akhyaarta sharafta leh flowgreya si aad dib barnaamij kala mid ah aad baan idiin salaamayaa idil adigana aad iyo aad baad u mahadsan tahay هاي ولا السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله هاي ولا السلام عليكم